Waxa ku soo dhawaada madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray Akadeemiyad Goboleedka Af-Soomaaliga ee AGA. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehelinayo dhigiisa dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xariga ka jaray Akadeemiyad Goboleedka Af-Soomaaliga oo xarunteeda laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladda Jabuuti hirgelinta Akadeemiyad Goboleedka Af-Soomaaliga si jiilka soo socda ee loogu kaydiyo dhaqanka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed laguna sii horumariyo afkeena Soomaaliga. Af-Soomaaligu waa xabagta isku haysa ummadda Soomaaliyeed, waa diiwaanka keliya ee xambaarsan dhaqanka, taariikhda iyo aqoonta dhaxalgalka ah ee faca weyn. waa sumadda iyo baadi sooca aan kaga duwannahay qurumaha kale ee caalamka ku nool, ayuu yidhi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa howlada Soomaaliya kula dardaarmay in ay xoojiyaan doorkooda kaga aadan wacyigelinta bulshada iyo u iftiiminta dowladda, maadaama oo maanta la haysto saldhig lagu sii hayn karo suugaanta iyo af-Soomaaliga. dhankiisa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xusay faa'iidada ballaaran ee ku jirta dhammaan dadka dhankiisa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xusay faa'iidada ballaaran ee ugu jirta dhammaanba dadka Soomaaliyeed hirgelinta Akadeemiyad Goboleedka Af-Soomaaliga. waxa uuna tilmaamay dadaalka dowladdiisu ay ku bixisay dhismaheeda, maadaama oo ay xudun u tahay ilaalinta midnimada iyo wadajirka dadkeena Soomaaliyeed. munaasabadan waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale, wasiiro iyo xildhibaano ka socda xukuumadda federaalka iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. haddaba akadeemiyadan ayaa la filayaa in ay wax weyn ka tari doonto kaydinta taariikhda af-Soomaaliga.